Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibada ku xidhan channelkan hoyga bulshada kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Haddii aad channelka ku cusub tahay saaxiib subscribe noo saar, sidoo kale mowduucan la gare haddii aad awoodana qof kale oo saaxiibkaya mowduucan si gaadhsii. Afar lugooley ma maqashay qof afar lugood leh? Mowduuceena maanta ayaan ku eegaynaa. Fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar, kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada. Waan mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. Josephine waxay ahayd gabadh ku dhalatay Mareykanka 1868 waxayna lahayd afar lugood, laba miskood, laba xubin taran iyadoo ku dhalatay cudurka loo yaqaan Dibagos. Gabadha Josephine ayaa ku dhalatay xaaladda afar lugooleyda ah. Lugaha saayidka ah ayaa ahaa markii ay yarayd kuwa aanay maamuli karin, si awooday inay ku socoto afarta lugoodba oo ay saaxiib dhowba la noqoto afarteeda lugoodba. Dadkii waaga ku noolaa wadanka Mareykanka waxay ku daawan jireen lacag tiro badan arageeda, heer ay noqotay mid lacag fiican ka samaysa daawashada muuqaalkeeda oo ay soo daawasho tagi jireen bulsho aad u badan. Waxayna ahayd qof karti badan, waxna baratay oo aad u firfircoon. Sanadku markuu ahaa 1886 markay gaadhay da'da 18 sanadood waxay aad isu jeclaadeen dhakhtarkii weynaa ee Clinton. In muddo ah ayuuna jeclaa, ugu dambeyn waxay isguursadeen, waxayna u dhashay 4 caruur ah oo mataan ah, halka labada mataan ah ay wada dhashayba ay ku dhashay labada xubin taran oo ay lahayd. Doctorka iyada qaba ayaa wuxuu yiri waxaan qabaa hal xaas, sidoo kalena waxaan qabaa 2 xaas. Clinton ayaa yiri ma jiro nin iga nasiib badan, waayo waxaan ka adeegtaa 2 meheradood oo deris ah. Maxaad ka fahantay hadalka doctorka? Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaan mowduuc kale kasoo diyaarino Josephine oo gabadhii afarta lugood lahayd. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa saaxiibayaal. Fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.